بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 242 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة ولا يقبل الله له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. رواه أبو القاسم الأسبهاني في الترغيب، والحديث حسن. إخوة الإسلام والإيمان، ما أنت تاريخ الإسلام كي تهي كوي بشي كوي تمناد بالقعدة سنة تكون أفر بقول أفرتني أفر إسلام كان وافقسان كوي لباتنكي بشي شنات سنة كلبضة كون لباتني صدح هذا. وحنو كتير كتاب كان المنتخب من صحيح السنة النبوية أنا ومقعد الرأي qaybtiisii saddexaad oo ku saabsanay salaada, khaasatan arkaanu salaad baan ku jiray ruknigii shanaad oo ar-rukuuc. yaa waxaanu ku jiray khuduuratu man laa yutimu ar-rukuuca was-sujuuda fi salaad. khuduurada iyo khatarta ay leedahay qofkaana rukuucda iyo sujuudda aana dhammaystirin oon dumaaniino iyo xasil aan la imanin arkaantoo dhanba weeye. xadiidkeenan maanta waxaa soo saaray alimaam abulqaasim alasbahani iyo keyrkiiba way soo saareen, ibn abi shayba iyo keyrkoodba. xadiidku waa xadiid mutakalamu fiihi oo culimmadu ay isku maandhaafeen, laakiin xadiid sheekh albani raxmatullaahi calayhi saxiixu tarkiib watarhiib iyo silsila saxiixa labaduba xasan buu kaga dhigayaa. saxiixu tarkiib watarhiib waxaa weeyaan 529 maaragtay silsiladana 2500 iyo xoogaa weeyaan. idan xadiidku waa xadiid xasana weeye, asagoo mawquuf abu hureyra ka asaxay oo waa mawquuf abu hureyra ku joogaa, iyo waa marfuuca labaduba la isku qabtay, labadaasa la isku qabtay. marka marfuuca sheekha marka labaduba way asaxeen bali, tan ayada dood kama jirto oo mawquufka abu hureyra maartay inuu abu hureyra ku joogo, laakiin marfuuca ayaa la isku haystaa. laakiin culimo badan marka xadiidka way soo dhaweeyeen xasan weeyaan bali. inta markaanu ka tagna xadiidka macnihiisa muxuu yahay, nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam: ina arajula nin baa la sheegay, dumarkuna waa lamid wey, la yusalli waa tukan 60 sana 60 sano ayuu tukanhayaa, walaa yaqbalu llaahu lahu allana kama aqbalhaya salaatan salaadna kama aqbalhaya. 60 sano ayuu qofka muslimka tukan, nin ama dumar wuxuu doonaa ha ahaado, salaadiisana la aqbali maayo. macnaheeda salaadiisa la aqbali maayo markii la yihahdo waajibku wuu ka dhici, laakiin ajir iyo thawaab uusan ka helaynin. limaada salaadiisa loo aqbali laaya? lacalahu waxaa laga yaabaa ama mudan yahay yutimu inuu dhammaystiro arrukuuca rukuucda, oo walaa yutimu uusan dhammaystirin asujuuda sujuudi uusan taam yeelin, wayutimu uu taam yeeli asujuuda walaa yutimu ma taam yeelaya arrukuuca rukuucdii. sidaasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. axadkiin runtii waa khatar wey, waa arrin qof kastoo muslima inuu ka cabsado welwel ku keenta laga rabo wey, oo inuu barto salaada. 60 sano cimrigiisiiba macaadhay qofka, 60 sano ayuu tukanhayay bali, markaasuusa ilaahay ka aqbalayni salaada. limaada? arkaanteedii buusa taam yeelaynin wey. salaada waxa loo aqbali laayahay arkaanteedii buusa taam yeelaynin. markaasaa nabigu wuxuu yidhi: lacalahu waxaa suurtagal ah ama uu mudan yahay inuu rukuucdii taam yeelo, laakiin sujuuddii uusa taam yeelin. sujuuddii buu taam yeelhayaa, rukuucdii ma taam yeelhayo. qiradii faatixadii buusa qumaat u akhriyeynin, maaragtay ictidaalkii buusa si fiican u samaynaynin. wahaakada arkaantii buu khalal ku keenayaa. mar haddii arkaantii khalal iyo dhaawac ku yimaado, salaaddii lama aqbalayo, way halaabaysaa salaadii. aqbal thawaabkii ajirkii baad waayi, way asixi, laakiin ajirkii baad waayeysaa. idan 60 sano waxaa soo tukanaysay 60 sano waxaa soo tukanaysa haddaama laga aqbalin, soo khasaaro mo. saa darteed ba qiyaamada markii la tago waxaaba laga yaabaaba in la yidhahdo qofka salaadaada waxba kama jirtaba. waa markuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, qof waxa ugu horreeya la xisaab waa salaada wey. salaadu haddii hagaagto wixii kaloo dhanna wuu hagaagi, haddii halowdana halowga marka midan baa kamida inuusan si fiican ba u tukan jirin, oo ruknigeedii iyo arkaanteedii wixii iyo dahaaradeedii uusan dhammaystiri jirin, uusan taam yeeli jirin. idan ikhwati filaahi, salaada aad ha loogu digtoonaado, oo qofka muslimka aqoon salaada ha u yeesho, oo salaada aanu baranno waxa naga burinhaya iyo waxa noo dhammaystirhaya, arkaanteedii iyo shuruuddeeda aanu baranno. war waxa la xisaabay oo ugu horeeya oo xuquuqda ilaahay waa salaada wey. salaadu haddii naga halowdo ka kac weeyaan, acmaashii kaloo dhan aad hagaajinaysa waxba kama jiro, laakiin salaadu haddii hagaagto kuwii kale ayada u shafeeci oo way raacayaan. idan bal xadiidkaas u fiirsada: ina arajula la yusalli buu nabigu wuxuu tukanhayaa 60 sana 60 sano ayuu tukan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, walaa yaqbalu llaahu lahu salaatan salaadna kama aqbalayo.
salaadii 60 sano meeqa salaadood ba ku jira lagama aqbalinba limaada la'allahu wuxuu mudan yahay yutimu rukuucda inuu dhamaystiri jiray walaa yutimu sujuuda sujuudan taam yeelin ويتم السجود سجود وتام يله ولا يتم الركوع إذا أركانتي مداوعي جري ويان أركانتي بس هيد سؤال إيمان جرين إذا صادرت صلاة دي مقبولة معي لحدا سنة وخسارات عمر الدار وي لحدا سنة قف سوت كان هي أولي الهباء منثورا وهي صلاة دادي وخسامر دي صلاة دساء وهالوضانا وحي كلنا ويراع وهاللابي زكاة بهاللابي صونك بهاللابي صدقة بهاللابي أيضا الرأس هيدت أيضا بقى هيدو حمارك أعماشا أي فيرسان هيين إذن إخوتي في الله إلهي سبحانه وتعالى حقا هنا تصانو يرزاق الراعتان كيس ورصلاة هلا برتم علمي هلا يشو وصلاة أنه هجاجينه وأمارت وتيرك إسلام كقوة وهو وين بكمتها ركن قلبادوي بعد التوحيد وصلاة دوي صلاة هذه كان الله وضوء وحبا ماشي كما يسوي إلهي سبحانه وتعالى وحويدي سننا بأسماء الحسنى وصفات العلى إنه حقا نتصنون يرزاق حق الراعتان كيسا هل مربع حديث لفظي كيسا أندبوا آخرين إياه الحديث 242 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصلي 60 سنة ولا يقبل الله له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع رواه أبو القاسم الأسبهاني في الترغيب والحديث حسن هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.